dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay siyaasadiisu soo bilaabatay 11 Oktoobar 2010 isagoo xilligaasi Soomaaliya ka noqday ra'iisul wasaaraha dalka. xilligaasi wax qabadkii iyo faalihii uu la yimid waxa aad u jecelaystay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxayna u muujiyeen garab istaag lixaad leh ilaa uu ka noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 8 February 2017. kadib doorashadiisii madaxweyne Farmaajo laga joogo muddo 3 sanadooda waxaabihii uu dadka Soomaaliyeed u qabtay kuwooda ugu tunka weynaa baahida daran loo qabay waxa kamida xukuumad ku dhisan wada shaqayn iyo kala dambeyn maamul oo ka fog khilaaf iyo isdabamarin sida koobka tayeenta iyo xuquuqaadkooda ciidanka xoogga dalka meel kasta oo ay joogaan sare u qaadida dhaqaalaha dalka iyo deyn cafinta dhowridda madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wax ka qabashada arrimaha amniga caasimadda iyo tan dawlad goboleedyada 90% dawlad wanaag iyo kala dambeyn.